iyo annagoo u dabaaldegayna guulihii laga gaaray jiidaha difaaca ee Awdheegle iyo Bariire inaad nagala soo qayb gasho farxad bay runtii noo tahay ra'iisul wasaare indhahaaga macallin ku ah wixii aad soo aragtay xaaladda ciidanku aad soo arkeen indhahaaga macallin ku ah ma faahfaahinayo waxaan rajaynaynaa insha Allah raggaanu waxay diyaar u yihiin una dhaarteen qarankooda inay difaacaan waxay diyaar u yihiin duruuf walba iyo xaalad walba dalkooda inay difaacaan dalka kuma difaacaan lacag la siiyo kuma difaacaan garaado la siiyo waxay ku difaacaan moral iyo wadaniyad bay ku difaacaan nin lacag ku difaaca kuma jiro dhammaantood inta dhimato shahiiday iyo inta noolba oo meel walba jooga ciidamada qarabka sida khaasatan xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka dhulku waxay diyaar u yihiin saacad walba iyo xilli walba dalkooda inay difaacaan meeshaan dagaalkii wuxuu ka dhacay 3 bishan abaarihii 9 iyo barkii ama 9:30 oo xilliga dambe ah yaa Awdheegle dagaalku xabadu ka dhacday Bariirana waxay ka dhacday 4 iyo rubi qoladaana lagu soo horeeyay qoladaasna digniin bay ka heleen difaacay sii galeen runtii waxaan isleenahay nimankan nabadiidka ah hadda magac kalaaba dubba u helo jiriye jahadiid buu yiri meeshan 10 baa ka raacay aan rajaynayno inaysan ciidan dambe oo Soomaaliya ku soo qaldamin hadii Ilaahay yiraahdo waxaan u daynayaa hadalkan u reebayaa taliyaha xoogga oo runtii aan leeyahay guusha aanu gaaro ciidanka dhulku aan gaaray maanta ma aan gaareen haduusan nagu hogaamin taliyaha xoogga saacadaha uu difaaca soo galay xabadii baa wali dhacaysay waxaan leeyahay runtii nasiib baan u yeelanay inaanu helo taliya xoog difaaca nagula jira qofka waxa la rabaa waxa uu galay haddaan taariikhdu sheegin in la sheego